kulan wacan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka tartan aqooneedka dugsiyada sare ee gobolka Banaadir ee telefishinka Som News TV oo hadahayo kale aad ka daawataan telefishinka Som News xarunta uu ku leeyahay Muqdisho. barnaamijka sanadkan waxaa taabagelinaysa Dahabshiil Group halka su'aalo diyaarintuna ay tahay jaamacadda Al Cimra International University. tartanka waxaa ku madlana dugsiga hoose dhexe sare ee Al Huda iyo dugsiga hoose dhexe sare ee Keer. waqtigii ugu dambeeyay ee xilligii lagu madlanaa tartanka waxa ay muujiyeen maamulka dugsiga hoose dhexe sare ee Keer inaanay suuragal u ahayn in tartanka waqtigiisa ay ku yimaadaan. sidaa darteed tartanka waxaa si forfait ah ku qaaday ardada dugsiga hoose dhexe sare ee Al Huda oo ku yimi waqtigii loogu talagalay. guddiga tartanka waxa ay go'aansadeen in labada iskuul maadaama dadaal iyo waqti ay soo bixiyeen waa gaar ahaan iskuulka Al Huda in laba kooxood oo kala ah Al Huda A iyo Al Huda B loo kala saaro tartankana sidaa uu ku qabsamo balse guusha guud ahaan ay maanta la hoydaan ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Al Huda. si aan u xaqiijino group A iyo group B cidda su'aasha lagu bilaabayo halkan ayay imaan doonaan nambaro ayayna qabsan doonaan nambarka ugu horeeya ee su'aasha lagu bilaabi doono si aan u xaqiijino. waa hagaag daawadayaal guddiga waxaa qayb ka ah Xamdi Faarax Cismaan iyo Ustaad Yaxye Macalin Aadan. waxaan bilaabaynaa su'aalihii sida qorituurkaba aad ku daawanayseen. su'aasha ugu horeysa in lagu bilaabo waxaa nasiib u yeeshay groupkii A ee dugsiga Al Huda. su'aashu waa su'aal diini ah. dhagaha fura group A. waxaad sheegtaan nabiga markuu kasoo hijrooday Makka ee uu Madiino yimaaday saxaabigii uu ku degay magaciisa. markale aan ku celiyo waxaad sheegtaan nabiga marka uu kasoo hijrooday Makka ee uu Madiino yimaaday saxaabigii uu kusoo degay magaciisa. markale aan ku celiyo waxaad sheegtaan markii uu nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa aatee kasoo hijrooday Makka ee uu usoo hijrooday Madiina saxaabigii uu kusoo degay magaciisa. waxaan filayaa su'aashaas jawaabteeda insha Allah inaad garan doontaan. magaca على عبد القادر حسين كان صعدا اسكولك الهدى هذا سؤال جوابته كور علي waxay noqon doontaa insha Allah Abu Ayub Al-Ansari. su'aashan oo ahayd su'aashii ugu horeysay ahaydna su'aal tarbiya ah ama diini ah la weydiiyay group A Al Huda jawaabtii ay ka bixiyeen sax qalad guddiga. su-aasha koowaad ee barnaamijka lana weydiiyay Al Huda ee diin ahayd jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah. bravo ardada dugsiga hoose dhexe sare ee Al Huda group A laba dhibcood ka qaata Somtel. su'aasha xigta waxaa iska leh group B jawaabta raadiya. waxaad sheegtaa ninka keliya ee nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee gacantiisa uu ku dilay. markale aan ku celiyo waxaad sheegtaa ninka keliya ee nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee gacantiisa uu ku dilay. waxaan filayaa su'aashaas jawaabteeda insha Allah inaad haleeli doontaan. Valentine
haddii aad su-aasha jawaabta isku day waxay noqon doontaa insha allah ubeya binu qalaf. su-aashan oo ahayd su-aal la weydiiyey ardada dugsiga hoose dhexe sare alhuda group B jawaabtii ay ka bixiyeen sax iyo qalad guddiga. su-aasha la weydiiyey alhuda group B jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah. baraawo 2 dhibcood ka qaata Somtel. su-aasha xigta waxaa iskale ee group A dhagaha fura yaa curiyey heesta gamaan faras. yaa curiyey heesta gamaan faras. mar kale aan ku celiyo yaa curiyey heesta gamaan faras. waxaan filayaa su-aashaas jawaabteeda insha Allah inaad garan doontaan. بسم الله مقعوا على عبد القادر حسين ونترت مايا سكولك الهدى عدن سؤال جوابتي كور علي وحين قندوتا إن شاء الله رايق وقاس. su-aashan oo ahayd su-aal suugaana la weydiiyey group A jawaabtii ay ka bixiyeen sax iyo qalad guddiga. su-aasha la weydiiyey iskuulka alhuda group A jawaabta ay ka bixiyeen waa mid qalad ah. haddaba haddii iminka ay soo hareer martay group A iminka si ka faa'iideysaan waxay u hortaalaa group B jawaabta. haddii aad su-aasha jawaabta isku day waa axmed suleymaan bidhe. su-aashan oo soo hareer martay group A iminka si ka faa'iideysaan u hortaala group B jawaabtii ay ka bixiyeen sax iyo qalad guddiga. su-aasha ka faa'iideysaan ugu soo gudubtay group B jawaabtii ay bixiyeen waa mid sax ah. baraawo 1 dhibic ka qaata Somtel. su-aasha xigta waxaa iskale isla group B waa su-aal suugaana yaa curiyey heestii dakano iga maqan. mar kale aan ku celiyo yaa curiyey heestii dakano iga maqan. mar kale aan ku celiyo yaa curiyey heestii dakano iga maqan. waxaan filayaa su-aashaas jawaabteed insha Allah inaad haleeli doontaan. magacay waa maxamed cumar aadan kana mid tartamaya iskuulka alhuda primary and secondary school B. haddii aad su-aasha jawaabta isku day waxay noqon doontaa salaan carabi. su-aashan oo ahayd su-aal suugaana la weydiiyey group B alhuda jawaabtii ay ka bixiyeen sax iyo qalad guddiga. su-aasha suugaanta la weydiiyey alhuda B jawaabta ay ka bixiyeen waa mid qalad ah. iminka si ka faa'iideysaan waxay u hortaalaa group A alhuda. jawaabteeda ka warceliyey waxay noqon doontaa insha Allah waa axmed suleymaan bidhe. su-aashan oo ahayd su-aal soo hareer martay group B alhuda iminka si ka faa'iideysaan u hortaala group A alhuda jawaabtii iyana ay bixiyeen sax iyo qalad guddiga. su-aasha ka faa'iideysaan ugu soo gudubtay alhuda ee jawaabta ay ka bixiyeen waa mid qalad ah. haddaba haddii labada qaybood su-aashaas jawaabteeda ay heli waayeen waxaa jawaabta looga fadhiyaa jaamacadda Al Cimra.
su-aashii afraad ee barnaamijka ahaydna su-aashii labaad ee la weydiiyay alhuda b sugaana ahayd aysan ka jawaabin ka faa-iideysaan uga gudubta isla dhigooda alhuda ee iyaguna aysan ka faa-iideysan una dhigneed sidan yaa curyo heystii dakano iga maqan waa axmed maxamed qaadi. waxaan filayaa labada qaybood in meel ay ku xaradeen dhammaan daawadayaasha iyo ka qaybgalayaashana su-aashaas mar kale aanay hareeri mari doonin oo jawaabtii ay bixiyeen jaamacadda alcimra meel ay ku xaradeen. su-aasha xigto waa su-aal taariikha waxaa iskale group A dhagaha fura xarunta ama magaalo madaxda dowladii islaamka ee umawiyiinta magaceeda sheeg. waxaad sheegtaan xarunta ama magaalo madaxdii dowladii umawiyiinta. mar kale aan ku celiyo, sheega xarunta ama magaalo madaxda dowladii islaamka ee umawiyiinta. waxaan filayaa su-aashaas jawaabteeda insha allah inaad garan doontaan. bismillah anoo ah u tartame ka mid ah alhuda gaar ahaan alhuda b alhuda e jawaabta hadaan isku day insha allah waxay noqon doontaa Baghdad. su-aashan oo ahayd su-aal taariikha la weydiiyey group A jawaabtii ay ka bixiyeen sax iyo qalad guddiga. su-aasha saddexaad ee la weydiiyay alhuda ee jawaabta ay ka bixiyeen waa mid qalad ah. imiga si ka faa'iideysaan waxay u hortaalaa group B alhuda jawaabta. waa farxan maxmed xasan u tartamayo alhuda baranjitu su-aasha jawaabteeda hadii isku day waxay noqonaysaa Dimashq. su-aashan oo ahayd su-aal taariikha soo hareer martay group A si ka faa'iideysaan u hortaala group B jawaabtii ay bixiyeen sax iyo qalad. su-aasha ka faa'iideysaan lagu soo gudubtay group B jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah. Bravo, hal dhibic ka qaata Somtel. su-aasha xigta waxaa iskale group B dhagaha fura ka jawaaba. waa isla su-aal taariikha. sheega asaasihii dowladii umawiyiinta. sheega magaca asaasihii dowladii umawiyiinta. sheega magaca asaasihii dowladii umawiyiinta. waxaan filayaa su-aashaas jawaabteeda insha allah inaad garan doontaan. alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. anigoo ah mid ka mid ah alhuda baranjito waxaan ugu horceliyaa su-aashaas insha allahu tacaala mucaawiya bin abi sufyaan. su-aashana su-aal ahayd su-aal taariikha jawaabtii ay ka bixiyeen sax iyo qalad guddiga. su-aasha saddexaad ee la weydiiyay group B alhuda jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah. Bravo, laba dhibcood ka qaata Somtel iyo Dahabshiil Group. su-aasha xigta waa su-aal juqraafi ah. waxaa leh group A alhuda. sheega badda adduunka ugu weyn. sheega
badda adduunka ugu weyn. mar kale aan ku celiyo, sheega badda adduunka ugu weyn. waxaan filayaa su-aashaas jawaabteeda insha allah inaad garan doontaan. bismillah أنا mid ka mid ah tartamayaasha Alhuda B Alhuda A haddii aan jawaabta isku dayo waxay noqon doontaa waa badda China. su-aashan oo ahayd su-aal la weydiiyey group A Alhuda jawaabtii ay bixiyeen sax iyo qalad guddiga. su-aasha la weydiiyey Alhuda ee jawaabta ay ka bixiyeen waa mid qalad ah. iminka si ka faa'iideysaan waxay u hortaallaa group B Alhuda. magaca waa cabdinaasir salaad oo ka socdo Alhuda Branch 2 su-aasha jawaabteeda aan ka warcelin waxay noqon doontaa Atlantic Ocean. jawaabta ay bixiyeen sax iyo qalad guddiga. su-aasha ka faa'iideysaan ugu soo gudubtay group B jawaabta ay ka bixiyeen waa mid qalad ah. haddii labada qaybood ay soo hareer martay waxaa laga sugayaa jawaabta Al-Cimra International University. su-aasha la weydiiyey group A Alhuda aysan ka jawaabin ka faa'iideysaan ugu soo gudubtay dhigooda group B iyaguna aysan ka jawaabin ahaydna su-aasha sida tan sheeg badda ugu weyn adduunka waa Pacific Ocean. waxaan filayaa labada qaybood ka qaybgalayaasha daawadayaasha in meel ay ku xaradeen jawaabtii ay bixisay Al-Cimra. su-aasha xigta waxaa iska leh group B dhagaa fura. sheega badda ugu yar adduunka. sheega badda adduunka ugu yar. sheega magaca badda adduunka ugu yar. waxaan filayaa su-aashaas jawaabteeda insha allah inaad garan doontaan. anigoo ah mid ka mid ah ardayda Alhuda Primary and Secondary School magacayga waa Cabdinaasir haddaan su-aasha ka warceliyo waxay noqon doontaa Atlantic Ocean. jawaabtii ay bixiyeen sax iyo qalad guddiga. su-aasha la weydiiyey Alhuda B jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah. baraawo 2 dhibcood ka qaata Somtel iyo Dahabshiil Group. su-aasha xigta waa su-aal xisaaba. waxaa le group A dhagaha fura. bedka lady ayaa ah 120 sentimitir laba jibaaran hadduu dhererku yahay 12 sentimitir raadi balaciisa. mar kale aan ku celiyo, bedka lady ayaa ah 120 sentimitir laba jibaaran hadduu dhererku yahay 12 sentimitir raadi balaciisa. mar kale aan ku celiyo, bedka lady ayaa ah 120 sentimitir oo laba jibaaran hadduu dhererku yahay 12 sentimitir raadi balaciisa. waxaan filayaa su-aashaas jawaabteeda insha allah inaad garan doontaan.
ليس عبد يوسف مثلنا اسكولك الهدى سؤال هذا اسكت ان شاء الله وحنا قدونتا 8 سنتيمتر 8 سنتيمتر su-aashan oo ahayd su-aal xisaab ah la weydiiyey group A jawaabtii ay bixin sax qalad guddiga su-aasha la weydiiyay alhuda ee jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah baraawo 2 dhibcood ka qaata Somtel iyo Dahabshiil Group su-aasha xigta waa su-aal xisaaba waxaa la group B dhagaha fura badka lady ayaa ah 84 sentimitir oo laba jibaaran haddii balaciisu uu yahay 7 sentimitir raadi dhererkiisa mar kale aan ku celiyo badka lady ayaa ah 84 sentimitir oo laba jibaaran hadduu balaciisu yahay 7 sentimitir raadi dhererkiisa waxaan filayaa su-aashaas jawaabteeda insha Allah inaad garan doontaan magacay waa maxamed cumar aadan kana mid ah tartamay iskuulka Facaweyn ee Al-Huda Primary and Secondary School Baranjito haddii aan soo jawaabteeda isku day waxay noqon doontaa dhererka leedigu wuxuu noqonayaa 12 sentimitir su-aashii xisaabta ahayd jawaabtii ay ka bixiyeen sax iyo qalad guddiga alhuda B jawaabta ay bixiyeen waa mid sax ah baraawo 2 dhibcood su-aashu waa su-aal fiisigiisa waxaa leh alhuda baranjiwan dhagaha fura haddii gaadhi muddo 5 saac si joogto ah xawaarihiisu ugu kordhayo 15 kilomitir saacadiiba ilaa 25 kilomitir saacadiiba soo saara karaarkiisa mar kale aan ku celiyo haddii gaadhi muddo 5 saac si joogto ah xawaarihiisu ugu kordhayo 15 kilomitir saacadiiba ilaa 25 kilomitir saacadiiba soo saara karaarkiisa mar saddexaad aan ku celiyo haddii gaari muddo 5 saac si joogto ah xawaarihiisa ugu kordhayo 15 kilomitir saacadiiba ilaa 25 kilomitir saacadiiba soo saara karaarkiisa waxaan filayaa su-aashaas jawaabteeda insha Allah inaad haleeli doontaan
الله الرحمن الرحيم مقعوا أبيس حاج أحمد محمد ونترتمايو سكول الهدى بريمري اند سكندري سكول قيبتيسا كوبات سؤال جابتي إذا كوري إن شاء الله بحين قنيسا 2 كيلومتر برهابر سكوير. su-aashan oo ahayd su-aal la weydiiyey alhuda group A jawaabtii ay ka bixiyeen sax iyo qalad guddiga. su-aasha la weydiiyey alhuda ee jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah. Bravo 2 dhibcood ka qaata Somtel iyo Dahabshiil Group. su-aasha waa su-aal fiisigiisa waxaa leh group B dhagaha fura baabuur ayaa xawaarihiisu yahay 60 kilomitir saacadiiba 4 saac kadib xawaarihiisu waa 70 kilomitir saacadiiba soo saara karaarkiisa baabuur ayaa xawaarihiisu yahay 60 kilomitir saacadiiba 4 saac kadib xawaarihiisu waa 70 kilomitir saacadiiba soo saara karaarkiisa mar kale aan ku celiyo baabuur ayaa xawaarihiisu yahay 60 kilomitir saacadiiba 4 saac kadib xawaarihiisu waa 70 kilomitir saacadiiba soo saara karaarkiisa waxaan filayaa su-aashaas jawaabteeda insha Allah inaad garan doontaan. بسم الله مقعي محمد عمر آدن كان بدي ترتمي سكول كفاعويني الهدى بريمي أنا سكندري سكول برنجتو هدي سواشني لو جات سكول دين وحين قدمتها إن شاء الله والله نبي 5 متر برسكن سكويرن jawaabtii ay bixiyeen sax iyo qalad guddiga. su-aasha la weydiiyey group B jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah. Bravo 2 dhibcood ka qaata Somtel iyo Dahabshiil Group. waxaan soo gaarnay qaybihii dambe waxaan soo gaarnay labadii su-aal ee ugu dambeeyay tartanka waxaa taabagelinaya Dahabshiil Group su-aal diyaarintu waa jaamacadda Al-Cimra su-aalahan waa su-aalo aqoon guuda sheega magaalo madaxda gobolka Awdal sheega magaalo madaxda gobolka Awdal sheega magaalo madaxda gobolka Awdal waxaan filayaa su-aashaas jawaabteeda insha Allah inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan. بسم الله مقعوا على عبد القادر حسين كنا سعداء وترتمياش سكول الهدى ايه عدن سؤال جوابت كور علي وحين نقن دونتا ان شاء الله بورم haddii sax ay tahay ama qalad guddiga. su-aasha la weydiiyey alhuda ee jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah. Bravo 2 dhibcood ka qaata Somtel iyo Dahabshiil Group. su-aasha xigta waxaa iska leh group B Al-Huda sheega magaalo madaxda gobolka Togdheer
sheega magaalo madaxda gobolka togdheer mar kale aan ku celiyo sheega magaalo madaxda gobolka togdheer waxaan filayaa su-aashaas jawaabteeda insha allah inaad garan doontaan بسم الله magaca Cabdi Naasir ka socdo Al-Huda Baranjito su'aasha jawaabteeda aan ka warcelin waxaan naqaysaa Burco su-aashan oo ahayd su-aal aqoon guud ah la weydiiyey group B Al-Huda jawaabtii ay bixiyeen sax iyo qalad guddiga su-aasha ugu dambeysay ee la weydiiyey group B Al-Huda jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah Bravo 2 dhibcood ka qaata Samtal iyo Dahabshiil group halka ay nooga soo idlaadeen 14 su'aal ee la weydiinayay labada qaybood ee kala duwan ee Al-Huda iminka waxaan ku dhawaaqi doonaa natiijada kadib waxaan la wadaagi doonaa labada qaybood ee tartamayay dareenkooda balse inta aanan siin tartanka jawaabaha iyo natiijada tartanka waxaan kusoo dhaweynayaa ustaad Yaxye Macalin Aadan oo qayb ka ah guddiga بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين وبعد ساكدا halkan waxa ku tartamayay Al-Huda laba qayb Al-Huda Branch 1 iyo Al-Huda Branch 2 oo kala matala Al-Huda A iyo Al-Huda B runaantii tartanka waa tartan furfaydo iska ahaa balse waxa ay muujinayaan ardayda halkan fadhisay aqoontooda ay ka soo barteen dugsiyada Al-Huda qaybihiisa kala duwan marka haddii aan ku hormaro Al-Huda A waxaa la weydiiyey 7 su'aalood oo isugu jira diini suugaan taariikh juqraafi xisaab physics iyo aqoon guud waxay hareer mareen ama ay qaldeen 3 ka mid ah 7 su'aal la weydiiyey waa su'aasha suugaanta taariikhda iyo juqraafiga halkaas waxay ku keenaysaa dhibco gaaraya 8 dhibcood waxaa si ka faa'iideysan u soo maray hal su'aal ka soo hareer martay walaalahooda Al-Huda B ma Al-Huda Branch 2 laakiin ugu dambeyntii ma aysan haleelin su'aashaas ka faa'iideysiiyeen halkaas waxay ku haystaan 8 dhibcood hadii aan usoo jilaaco dhanka Al-Huda Branch 2 ama Al-Huda B ayagana waxaa la weydiiyey 7 su'aalood oo isugu jira diini suugaan taariikh juqraafi xisaab physics iyo aqoon guud 7 su'aal la weydiiyey waxay si sax u garteen 6 ka mid ah hal ka mid ah ma aan haleelin waa su'aasha suugaanta waxaa si ka faa'iideysan u soo hareer martay 3 su'aalood ka soo wareegtay Al-Huda Branch 1 saddexda su'aalood waxay ka garteen ama si sax u keenay 2 ka mid ah labadaasi su'aal waa suugaanta iyo taariikhda guud ahaan waxay la yimaadeen Al-Huda Branch 2 14 dhibcood halkaasi 8 dhibcood oo la timaaday iskuulka Al-Huda Branch 1 ama ku tartamay Al-Huda A iyo 14 oo la yimaaday Al-Huda Branch 2 halkaas ay tartanka ku soo ilaalin insha Allah waxaan filayaa natiijadii tartanka in si wanaagsan aad ula socoteen qaybtii guusha gaartayna waxaan leenahay hambaliyo guud ahaan Al-Huda qaybihiisa kala duwanna tartankaasi forfayda ah ayay kaga qaadeen dugsiga hoose dhexe sare ee Keer oo tartanka kula madlana iminka waxaan dareenkooda siinaynaa labada qaybood ee tartamayay sida ay u arkaan tartankan magacayga waa Maxamed Cumar kana socday tartamay u tartamaya iskuulka Faacweyne Al-Huda Barmanaa Secondary School waa horta tartan hadii la waa labadaba hadii laba dhigax la isku dhufto mid uu baan jabo hadda waa xaalad tartamayn waa dadka walaalaheen oo iskuulka aan nahay waa hadii laga xalan dadkii kale hadda forfait ka qaadanay halka waxa uu maani waa
guul ama guul daro laakiin waxaa sii jeclaan lahayn hadday joogi lahayn guusha laakiin waa ilaahay ma keenin baa dhanka kale qaybta kale ayaan siinaynaa dareenkooda. bismillaahi raxmaani raxiim awalan waxaan salaamayaa dadka halkan joogo kusoo biiray khaasatan gaar ahaan tv-ga som news runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaato tartanka noocan oo kale maasha allah aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa sidoo kale farxadeyda mid lasoo koobi kara ma ahan aad iyo aad ayaa ugu faraxsan aan tartan noocan oo kale aan ka qayb qaato iyo sidoo kale inta iskuulada sidoo kale tartanka bishan ramadaan oo barkeysan ay si fiican uga qayb qaadanayaan dhankii kale inta horta magacayda ku bilaabay Xaaji Axmed Maxamed kana tirsan iskuulka arday kamid ah iskuulka Al-Huda qaybihiisa kala duwan oo Baranji Baranji wana ku mid yahay sidoo kale inta walaalihiin aad iyo aad ugu mahadcelinaya ayagana oo Baranji tuwa oo maanta xawaa la tartamanay anagoo raadinayno inaan istijaabino maasha allah barta aad iyo aad ugu faraxsanaa mar walbana waa jeclaan lahaan in sidaan oo kale u guuleysano marka insha allah haduu ilaahay raado khayrta waa salaamantiin tartanka xiga iyo iskuulada ku madlan wargelintooda aan u daayo Xamdi Faarax Ismaan. aad baad u mahadsan tahay Kahiyo aan ku mahadcelinay adiga iyo dhammaan daawadayaasha iyo tartamayaasha halkani maanta ee aqoontooda ku tijaabinayay Al-Huda A iyo Al-Huda B kuwa oo farfayd ku qaaday tartanka maanta haddii Allah weyn u saamaxo waxaa maalimada Brita ku wada madlan tartanka hadduu Allah weyn saamaxo waa iskuulada Daarusahal iyo sidoo kale iskuulka kale ee lagu magacaabo Atlantic Ocean oo kamid ah iskuulaadka aqoontooda ku baratami doona isla markaana halkan ku soo xaadiri doona sidaas ayay noo balan haddii Allah weyn u saamaxo maalimada Brita guud ahaan inta ayaan ku soo afmeeraynaa tartanka xiga iskuulada ku madlan waxaan rajaynayaa in halkan aqoon ay ku soo bandhigi doonaan inta barnaamij noocan oo kale aan ku kulmi doono dhamaanteen oo isku duban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas si nabadgelyo amaan Allah bara afkaaga bilowinkaada bobsi qoraalka akhriska buuga bayaanu meeri bara afkaaga bilowinkaada bobsi qoraalka akhriska buuga bayaanu meeri jaxa khada ra'sa shada'aga faqa kala ma'na wahaya